waxaynu halkan ku soo qaadanaa taariikhdii madaxweynayaashii dalka Soomaaliya soo maray halkan waxaan idinku hayaa madaxweynihii toddobaad ee dalka Soomaaliya soo maray taariikhdiisii oo aan soo koobay aniguna waliba barqiye bal aynu bilaabo hadaba taariikhdiisii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxa uu ku dhashay magaalada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe sanadkii 1964 waxaana uu Quraanka xifdiyay isagoo 9 jir ah sanadkii hadaba 1988 waxa uu ka baxay oo uu ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Sheekh Suufi sanadkii 1993 waxa uu waxbarasho jaamacadeed u aaday dalka Suudaan gaar ahaan jaamacadda lagu magacaabo Kordofan kulliyadda waxbarashada ee Islaamiga sanadkii 1998 wuxuu ku dhamaystirtay marxaladii jaamacadda dalka Liibiya jaamacadda maftuuxa kulliyadda qaynuunka isagoo ka qaatay shahaadadii jaamacadda sanadkii 2000 Sheekh Shariif waxa uu dib ugu soo laabtay dalka wuxuuna aasaasay isla sanadkaasi gole loogu magac daray xiriirka guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed sanadkii 2001 ilaa 2002 waxa uu noqday gudoomiyaha maxkamadda maamulkii gobolka Shabeellaha Dhexe ee uu madaxa ka ahaa Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere sanadkii hadaba 2002 ilaa 2004 waxa uu ka mid noqday barayaasha dugsiga sare ee Juba kaasoo ku yaala xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho sanadkii 2003 ilaa 2005 waxa uu noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee golaha jaamiciyiinta Soomaaliyeed isagoo ahaa xubin firfircoon oo ka mid ahaa bulshada rayidka sanadkii 2004 ilaa 2006 waxa uu aasaasay isla markaana uu gudoomiye ka noqday maxkamadihii Islaamiga ee ka soo ifbaxay magaalada Muqdisho sanadkii 2006 waxa uu noqday gudoomiyihii golaha midowga maxkamadaha Islaamiga ah ee Soomaaliyeed ee gacanta ku dhigay 6 bilood ee ugu dambeysay waqtigaasi bishii September ee sanadkii 2007 ku dhawaad 500 oo ergo ah oo ay ku jiraan xubnihii maxaakiimta Islaamiga xildhibaano ururada bulshada rayidka ah iyo qurba joog ayaa magaalada Asmara ku dhisay dastuur 9 bishii Juun ee sanadkii 2008 xisbigii uu hogaaminayay Shariif ayaa magaalada Djibouti heshiis nabadeed kula saxeexday dowladii ku meel gaarka ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed 31 bishii January ee sanadkii 2009 doorasho ka dhacday magaalada Djibouti ayaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed loogu doortay madaxweynaha dowladda ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya haddaba dowladii uu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxa uu muddadii dhowr sano ahayd ee ay jirtay soo maray dhowr ra'iisul wasaare oo uu ka mid ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas ayay inoo joogaysaa daawadayaal la socda qaybaha dambe oo aan soo dayn doono haddii Ilaahay yiraahdo